bismillaahi raxmaan raxiim dhegeysta kusoo dhowow warka kooban ee raadiyaha mustaqbal qabanqaabada aaska ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cali khaliifa galeer ayaa laga dareemayaa magaalada muqdisho iyadoo lagu wado in gudaha magaalada lagu aaso mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxda qaar ee maamul goboleedyada ayaa ku sugan garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho halkaa oo lagu wado in meydka marxuum cali khaliifa galeer laga soo dejiyo diyaaradda ayaa meydka marxuumka kasoo qaaday magaalada jigjiga ee ismaamulka soomaalida itoobiya iyadoo lagu wado in magaalada muqdisho la keeno islamarkaana halkaa lagu aaso mas-uuliyiin kala duwan oo dowladda federaalk soomaaliya ka tirsan gaar ahaan siihayaasha xukuumadii hore ee xasan cali kheyre ayaa ka qeyb ah mas-uuliyiinta ugu badan ee aaska ka qeybgalaya iyadoo madaxda sarsare ee dalkana ay qeyb ka yihiin wararkeena iyo barnaamijyadeena soo aadan ayaad ku maqli doontaan mas-uuliyiinta halkaasi ka hadashay iyo qaabka loo aasay marxuumka askarta ciidanka uganda ee ku jira horgalka midooda afrika ee amisom ayaa lagu weeraray wadada isku xirta shalaambood iyo marka waxaana ka dhashay khasaare dhimashiya dhaawac wararka ka imaanaya halka ayaa waxa ay sheegayaan in qarax ku bilowday miino nooca dhulka lagu aaso lala egtay mid ka mid ah gawaarida ciidamada amisom ee dalka uganda u dhashay waxaana xigay dagaal toos ah oo dhex maray ciidamada amisom gaar ahaan kuwa uganda iyo al-shabaab dhinacyada dagaalamo waxaa soo kala gaaray khasaare dhimashiya dhaawaca iyadoo al-shabaab dhankeeda ay sheegeen inay dileen laba ka mid ah askarta uganda u qaabilsan soo saarista miinooyinka dowladda uganda weli war ah oo kasoo baxay ma jira oo ku aadan weerarka iyo sheegashada al-shabaab ee ku aadan inay dileen askar ka tirsan ciidanka uganda ee qeybta ka howlgalka nabad ilaalinta amisom gaar ahaan kuwa miinooyinka baara madaxweynaha dalka cuba miguel diaz canal ayaa jimcihii xiriir la sameeyey dhigiisa dalka kenya uhuru kenyatta oo ay ka wada hadleen xaaladda iyo xorriyadda laba dhakhtar oo al-shabaab u afduuban sanad iyo bar war ka soo baxay madaxtooyada havana ayaa lagu sheegay in wadahadalkan uu ka dhashay kadib markii dowladda kuuba ay kordhisay xiriirka salka ku haya walwalka dhaqaatiirta gacanta ay al-shabaab ku hayaan kuwaas oo la afduubtay abriil sanadkii 2019 waxaan wadahadal taleefon miradhal ah kula yeeshay madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta anigoo iswedaarsanay arrimaha dhaqaatiirta iyo qodobo kale sidaa waxaa bartiisa twitter-ka ku qoray madaxweynaha dalka cuba ayaa dadaal ku bixinaysa xorriyad helista labada dhakhtar ee al-shabaab kasoo qafaalatay mandera oo lagu kala magacaabo lend rodriguez hernandez iyo azel harera korea oo takhasuskoodu yahay qaliinka iyo daaweynta shantii bishan wasiirka arrimaha dibadda cuba ayaa xiriir la sameeyey dhigiisa soomaaliya danjire axmed ciise cawad oo ay ka wada hadleen qorshaha lagu soo dayn karo dhaqaatiirtan afduuban iyo doorka dowladda federaalk soomaaliya ay ka qaadan karto 6 oktoobar waxaa soo baxay warar sheegayn odayaal dhaqameed ay u kala dabqaadayaan al-shabaab iyo cuba si loo sii daayo dhaqaatiirta waxaana saacado kadib war ka baxay ama war lagu daabacay wakaalada a b lagu sheegay in la sii daaya dhaqaatiirta balse markii dambe waxaa beeniyey labada wasaarad arrimo dibadeed muqdisho iyo havana dowladda cuba ayaa soo bandhigtay sida ay uga go-an tahay xorriyad weelista dhaqaatiirta ku maqan gacanta al-shabaab ee la aaminsan yahay in lagu hayo deegaano ka mid ah dowlad goboleedka jubbaland inkastoo warkaa aan la xaqiijin karin ugu dambeyntiina 10 oktoobar waa mid ka mid ah maalmaha goonida lagu yeelay munaasabadaha sanad weliba la maamuuso oo ay diiwaan gelisay qaramada midoobay si la mid ah maalmaha badan ee ku jira bilaha sanadka ee la xuso bilowga maalintan waa sanadkii 1992 waxaana saxiixay oo u codeeyey 150 wadan oo caalamka si loo maamuuso sanad waliba marka la gaaro 10 oktoobar maalinta caafimaadka dhimirka adduunka inta lagu guda jiro munaasabada waxaa lasoo bandhigayaa dhibaatooyinka dhanka dhimirka iyadoo ay taageerayo boqolaalka ruux ee la xanuunsan xanuunka dhanka maskaxda kuwa oo sababo duruufo awgood islamarkaana maskaxdooda ay isrogtay halku-dhiga sanadkan waa dhaqaaqa caafimaadka maskaxda kordhinta maalgashiga caafimaadka maskaxda waxaa lagu soo jiidanayaa dhaqaatiirta iyo dadka dhaqaalaha leh guud ahaan warka kooban ee raadiyaha mustaqbal waa nageynta